waxaan booqday sanaag sibahan buurta daalo kadibna ilinkeedan markan marayo waxaan arkay goobta tan oo dhagaxanta inta la leegi ku tuulan yihiin markii aan ku rugalay waxaan ogaaday inay halkani tahay warkada wartaabka arkaysan waxa lagu bixinayaa waxa weeye waa dhagax tuurkii Araweelo hadda waxaan maraynaa faafkii hore ee buurta daalo war abdimjido barkaale kaale حاجرك توري صح ينرجين ku tuuray kaaga ka badnaa way u qalantaa inta ayeen ka badan wayna dhufaantay baan maqlay marka wax loo naxariisto ma islaantu wax weeyaan waliba kaliya taa halka way ku nasatay baa leeyahay gurigeedii ma wahayn kumay dhiman xabaasheedii ma fadhiga fadhiista halka aba waxa soo dhagax loogu tuuro war rag waa cil qabaya waxaan booqday sanaag sibahan buurta daalo kadibna ilinkeedan markan marayo waxaan arkay goobta tan oo dhagaxanta inta la leegi ku tuulan yihiin markii aan ku rugalay waxaan ogaaday inay halkani tahay meel lagu xuso Araweelo sida daraadeedna waxa soo dhagaxa ay saareen ragga Soomaaliyeed ee goobta tan soo booqanaya halka xawlida Soomaaliyeed markii yimaadaan ay saaraan waxa kaan ah iyagoo waxaan xusaynaa boqoradii Soomaaliyeed Araweelo ee dumarka aad ugu jeexsanad raggana ku adadkay markii booqday goobta tan waxaan go'aansaday bal inaan baaro taariikhdii Araweelo anigu su'aalo badan maskaxdayda ka dhex guuxayaan oo ugu horeeysan ahayd Araweelo sheekooyinka laga soo wariyaa ma iska sheeka xariireed baamise waa shakhsiyad dhab ah oo jirtay oo talin jirtay waqtiyada kamid ah sidoo kale hadii ay jirtay ma ku sifaysnay tilmaamahan laga soo wariyay ah in ahayd qof adag oo runtii aan jixin raggana waliba aad ugu daran boqortooyada loo sheegaase halkeeba xarun oo ahayd oo ay ka tilin jirtay qabiilka looma sameyn qabiiladaas haatan la isku gartaa loo sameeyay talow Araweelo qolomay ahayd sida daraadeed su'aalaha jawaabtooda saan u helay waxaan baaray buugaag badan oo taariikh ku duugan tahay kuwa kale oo dalxiisayaasha loo sameeyay iyo sidoo kale kuwa dhaqan iyo suugaan laga hadlaya xataa waxaan galay mareegta internetka saan u helo maqaalo laga diyaariyay Araweelo iyo bal hadda inaan helo website si tafatiran uga hadlay taariikhdeeda su'aalaha la isweydiinayna kuwa badan oo kamid ah waan helay asahataan oo iska dhaxlaya baraha bulshada ayaaba waxa iga soo horbaxay video aad u qurux badan oo ka diyaariyay qoraaga weynaayo Soomaaliyeed dhaqan yaqaankii tacabka iyo tamarta badan ku bixiyay sidoo uu ururin lahaa dhaqanka Soomaaliyeed nooc walba uu leeyahay ayakana waaye Axmed Faarax Ali Idaaja bal horta inta hore aan isla daawano muuqaalka uu Idaaja ka diyaariyay Araweelo intaysan laakiin aan muuqaalka bilaabin fadlan haddaad ku cusubtaan kanaalka ku soo biraadigo subscribe taabanaya gambaleelkana furo si ku soo gaaro muuqaal waliba markaan soo gudbino videogeena kanaalna like saar oo si share gaar asxaabta si looga wada faa'iideysto aan wada dhageysana taariikhdii facaweyneed ee Araweelo iyo Idaaja oo si fiican inooga sheekayn doona dhegaystayaal sida sheekadii qayb libaax ee toddobaadka hore aydun barnaamijkan ku maqasheen Soomaalida dhexdeeda sheeka xiriirooyinka caanka ku ah waxaa iyaduna ka mid ah sheekada boqorad Araweelo taasoo lagu andacoodo kol inay dhulka Soomaalida meelo ka mid ah ay boqorad ka ahayd inkastoo aan taas cidina caddayn karin haddana waxaad moodaa bulshada qayb weyn oo ka tirsan jiritaankeeda inay rumaysan tahay kolka haddii ay jirtayna waa boqorad aan kutubta taariikhda lagu xusin oo wax qorayaashii hore ay iska iloobeen haddii aysan jirinna waa qof dadkii sheekooyinkeeda maleegay ay u saariyeen dabeecado la yaab leh oo kelitalisnimo iyo naxariis darraba ay saldhig u yihiin gobollada Soomaalida intooda badan waa laga yaqaan waxaase xarunta boqortooyadeedii lagu sheegaa degmada Ceelaayo oo waqooyi bari Soomaaliya ka mid ah halkaasoo xajuubkeedii inuu ku yaalna la isugu sheekeeyo yeelkeeda sida la wariyo hab afgembi u eg ayay Araweelo talada ku qabsatay waxay ahayd qof dumarka ka adag oo anshiga ragga leh waxna aan u ogeyn dabadeed si ay laboodka xukunka ugala wareegto ayay maalmaha ka mid ah waxay dumarkii oo idil ka dhaadhicisay dhowr cisho howlaha guriga iyo carruurtaba inay ragga faraha uga qaadaan iyagiina way ka yeeleen dabadeedna howlihii lagu cidleeyey intii uu raggu ku mashquulsanaa Araweelana ciidan ay haweenkii ka samaysay ayay hubkoodii ku urursanaysay sida la yidhi kolkay Soomaaliya warmara ka dhigtayna way qabqabatay markay taladii u gacan gashay waxay ku dadaashay inay hesho tabihii ay weligeed ku haysan lahayd go'aan yaab leh ayay markiiba soo saartay waxay tidhi rag oo idil waa in la dhufaanaa kii diidana waa in la dilaa amarkaas kolkii la fuliyeyna waxaa geyigii isugu soo haray baa la leeyahay haween talada haya iyo rag wada dhufaanan oo ay adeegsadaan inay waxba ka dhiidhiyaanna aan laga idayn inkastoose wax waliba sidii ay qorshaysay ay u dhaceen
haddana waa dambe ayaa araweelo waxaa ku soo kordhay welwel ay ka qabto rag aan la dhufaanin oo qoorihii inay weli geyiga ku nool yihiin kuwaasoo xukunkeeda berri ka maalin halis ku noqon kara sidee bay kolka taas ku hubin kartaa ayay isweydiisay waxay soo rogtay markii ay dabin joogtaba dadka ay u taliso xujooyin adag inay soo dhex dhigto kuwaasoo haddii ay muddo kooban ku furdaamin waayaan dil ku mudan jiray malaha waxay islahayd xujooyinka adag nin ay raganimadiisu u dhan tahay mooyee mid la dhufaanay halkan baa waxaa sheekada kaga soo biira dil iyo dhufaanidba nin keligii araweele ka badbaaday nin garaad badan oo ku guulaystay xiniyihiisa oo u nabad qaba inuu geyigana wax kaga noolaado waxaa la odhan jiray oday biiqe isaga ayaana dadka meel ugu jiray oo si aan loo layn xujooyinkii inkaaraa ee araweelo u furfuri jiray sida haddaba lagu sheekeeyo maalin bay araweelo waxay dadkii ku xujaysay inay u keenaan dhig qaansaroobaad la-eg oo ay aqal ku dhisato wax ay yeelaan markay garan waayeenna waxay la tashi ugu tageen oday biiqe oo markaa ku yidhi u taga oo weyddiista udub la-eg oo dhigta lagu celiyo bal horta inay iyadu keento markaas bay walaacday nabadgelyadeedii ayay u cabsatay waxay dareentay geyiga rag qoorihii inuu weli ku dhaqan yahay kolkaas bay maalin kale dadkii waxay ku xujaysay harag labada dacoodba dhogor ku leh inay u keenaan taana wax ay ka yeelaan markay garan waayeen bay oday biiqa sidoodii ula ciirsadeen isna wuu u furay markuu kula teliyey inay dheg dameer u geeyaan taas markay ula tageenna waxaa araweelo ku sii badatay baqdintii ay weligeedba ka qabtay rag ah oo u babac dhigi karaa dhulka inay joogaan welina aan la wada dhufaannayn si kastaba ha ahaatee sheekooyinka araweelo loo saariyey laba siyood ayaa loo fasiri karaa haddii ay yihiin kuwa raggu maleegay waxay u eg tahay inay uga jeedeen inay ku maleeyaan haddiiba uu dumarku geyiga xukumi lahaa saxariirta ay iyaga badi lahaayeen iyo guud ahaan sida foosha xun ee ay waxyeeli lahaayeen taana waxaynu ka garan karaynaa 1940kii qarnigii 20aad gabay uu tiriyey faarax xuseen sharmaarke oo ahaa maansiyahan gobolka gada iyo guud ahaan galbeedka webi ganaane aad looga yaqiin inkasta uu geeriyooday isaga oo da'yar haddana faarax wuxuu ahaa gabyaa suugaanta soomaalida ku soo biiriyey maanse qurux badan oo halmuceedka iyo tuducyada halqabsiga lihi ay muushka yihiin taana aan tusaaleeye isaga oo tixgelin xumo xagga bulshada ah ka cabanaya wuxuu ahaa ninkii yidhi tolkay baa nin doorkiis aqoon jeer god loo diro ee boqorkii u daahira col bay ugu dadaalaane dayaxoodu goortuu dhaco yay duga yidhaahdaane hase ahaatee erayada sida weyn loogu xusuustaa waxay ku jiraan tix uu tiriyey mar uu ku tashaday maanse oo idilba inuu ka shiidaad baxo oo aanu kol dambe gabyin sababihii go'aankaas ugu wacnaa oo 16 ahaa kolkuu dadka u sheegayey waa tuducii uu ku daray ee dabadeed dalka soomaalida oo dhan caanka ka noqday shimbir duulis badan oo dhulkii degi aqoon waayey marun buu libaax labadii daan dalaq yidhaahdaaye inay edebushay doora tahay yaan isaga daay gabaygiisan aan kor dhow idin marin doono wuxuu faarax xuseen ku xusayaa sheekooyinkii boqorad araweele iyo xujooyinkii ay dadweynaha ku tijaabin jirtay oday biiqatabtii uu kaga badbaaday iyo gadaalkii sida iyada loo dilay wuxuu ugu horraysiinayaa xujadii ku saabsanayd ratigii ay dalbatay ee caddaysinka ahaa haddana raraa wuxuu kaluu si qurxoon gabayga ugu soo bandhigayaa falaadyadeedii la yaabka lahaa kii ugu sii yaabka badnaa waa gabadhii ay dhashay markay labada nin u wada dhistay ee midna ay ku amartay dharaartii inta qorraxdu cirka ku taal oo keliya inuu u imaan karo kii kalena ay u sheegtay habeenkii oo qurax inuu gabadha u fasaxan yahay si farshaxanimadu ku dhan tahay ayuu gabyaagu inoogu sawirayaa qorshahaa silloon dhibaatadii ka timid kolkii ay gabadhii wiil dhashay ee labadii nin ay isku qabsadeen iyo sidii gartoodii markii dambe loo naqay inta aanan gabaygaas soo gudbin waxaa dhegaystayaa lagama maarmaan ah inaan idiin sheego markii uu faarax tirinayay inuu u dan lahaa dumar u dhaxay odayo ay qaraabo dhow ahaayeen odayadaas oo sida isaga la ahayd haweenkii ay qabeen isu dhiibay lana tashan jiray ayuu sheeka xariiradan wax ku tusayaa isaga oo ku baraarujinaya inay mudan doonaan raggii ay araweela u talin jirtay wixii xilka lahaa ee ay muteen sida muuqatana wuxuu gabyaagu rumaysnaa mahmaahdii xilliyada bulshada soomaalida inteeda badanna ay rumaysneed ee ahayd
reer ay marray u talisay murug maarug baa u dambaysa gabaygaa faarax oo yaro dheer waxaa ka mid ahaa arraweelo dumar oo dhan bay u aqli roonayde ayaduna awowgeed la naar ma arrin fiicnayne goortii ugaas laga dhiguu ololay suurkii nimankii amiirka u xukumay qoorihii ebere waxay tidhi haddaan laga idlayn way ajalayaane aqlinaaqosyaashii boqraday ooyo dabadeede arrinkeeda waa lagu lumaa oori caana lehe awr wada caddaysana asaan agabkii loo waayin yay tidhi cadduuriyo ilgaal ku amriyoo saara wuxuu yidhi abwaankii ku jiray aqalka reertiisa intaad marisaan ratiga dhiiqadii adabla la ordoo iyadoo engegan aayar khabar siiya gabadhii itaal badan rag waa wada indheeyaaye inanteedii toosnayd hadduu wada ilaalaystay nin waliba anaa eeddo kaa iibin buu yidhi mid bay tidhi allaylkii la joog waana araddaaye oo yaanan kuu iman hadduu ooggu soo kaco ha indhayn dharaartii wad baa jooga aqalkaasi mid bay tidhi shamsada eego oo waaga soo oroode kana aarsa maantii aday oori kuu tahay oo agagarkeedaas ka durug aaska oo dumay isma oga raggana naagtu wou wada adeegtaaye uurowdaysaa laba nin baan kala irdhaysnayne umushay oo islowbay dhashoo loona alalaasi nin ilma leh asaan arag dharaar aamin qabi waayey arbihii cawadii guuri jiray soo ilbiriqleeye ayadoo nin kale aabba yidhi aragii reerkii fulay baa abraaree harkii oodda soo jebiye eebada iyo gaashaanka iyo qaata ulihiiye inkir iyo dagaal iyo fidnay kala ebiyoodeene eelkaas wixii dhigayna waa habar inkaaraade la aroori oo niman maslaxo loola soo orodiye araddii mid baa helay kubaa qaatay inankii waxay tidhi adeeg baan u diray aada samadaasi oo qaansa roobaad allahan aqal ku weynayne ee iila soo orod ragow yaanan ku idlayn lagu orodii oday biiqa waa tale adoogeede wax la yidhi awowow fidnuu dhigay iblayskii ka arrima cirkana eegnay oo aadni tegi waaye wuxuu yidhi u taga oo kufriga ehelka naareeda aannu yeellee meeshaan adaa noo amiira lehe aqbalaya ayeeyoy la imo udubdhexaadkii waxay tidhi odaa nool tashigan inan ma keeneene aan arkee ayaan keliya rara beelahoo idilay afkuu gelisay meel oo manaah hilin abaaraade wuxuu oofta iga saara yidhi guubiskii ugube markay awrti kala daadatuu daaqay omoskiiye ciyoontaba haween waa indhee aaminkaa galaye aahiyo asqaa loogu go'ay oo masooraha aan arooro eedoy la yidhi maalkii naga oonye waxay tidhi il baan mayrayaa 10 ayaamoode dabadeedna waa kii ajaray ehelo khayrkii aqlinaaqus goof ooman baa loo afaafadaye ashahaado goortay akayd oyday habartiiye iyadii amuuddaye waxaa jooga ehelkeede giddigoodna naagiyo ibliis waa ilmo adeere labadaba ninkii aan inkirin waa allow sahle taasi dhegaystayaal waa aragtida ragga waa haddii raggii hore sheekooyinka boqorad arraweelo ay iyagu mala awaaleen haddiise sheekooyinkaasi yihiin qaar ay dumarkoodii abuureen waxay u eg tahay inay iyaguna ku muujinayeen caradii ka haysay raggoodii ku amar ku taaglayn jiray ee talada qoyska iyo midda bulshaweynta toona aan in yar mooyee wax quman uga oggolaan jirin